دوغي كبطاي حتى ودغيسو isbedela nabiga loo soo dhigay was kala cunay waran waxan ma cunay iga fogeeyay waxba toona kuma odhanin yani wuxuu ahaa qof mutawaadica oo waxay cunaan la cuna oo waxay xidhaan la xidha maradiisa wuu tolan jiray kabtiisa wuu yeelan jiray gurigiisa wuu ka khidmayn jiray oo ka shaqeyn jiray gurigu ka shaqeynaya damaha kana fartoqola waa qolkii yaraaya caashe marka uu tukanayo عاشي عقا markay soo kala baxsato u qanjiirin jiray si ay caga uga laabato ugu sujuudo waa qolka ma aha fadhi iyo kitchen iyo fadhi iyo living room wax kala baxsan ma aha waa qolka yare qof markuu jiifo ka kale salaadiisii uu ku cidhiidhiga noqonayo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam nolosha caynkaasi waa gaajoon jiray waa dhargi jiray waa soo gali jirtay hantidu waa bixin jiray qof caadi iyo mutawaadic buha bal nabigu tawaaduciisa inuu muujiyo raashinka markuu cuno faraha raashinka kaga soo hadhawa ka muudmuudsan jiray waxa laga yaabaa halkan dad farta yara muudsato marka inay idhaa war miyuu yara iimaan la qof kale ama gaaja haysa yani waxay tilmaamaysaa nabigu sidoo tawaaducay cunadu gacantu ku cunay inta yara ku soo hadhay la waa tuu cunayay inuu ka leefleefo ka muudsado nabigu alayhi salaatu wasalaam dhaka min sunnati ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كد عيسنيه وحديث الترمذي ورينيه امام الألباني الصحيح كنت المام يوحلها اللهم احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اله انا مد مسكين وان كبريا هين انه له انا مسكين انا يدل مساكين تنا اخره الى سو صار يعني مسكين مدن لو ما جيده مد غعن مدن او غعن مدن ku ducaysanay ma waxa loo jeedaa mid mutawaadica waan kibirsanayna dadka kamida وأن جبارين تكوتشرين. إذن أيها الإخوة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وصفة كواد إلهي سي إن هاين ضد متواضعين وحق تواضع وحوه الريان حقه قان ستد ربي قاين دوه قان ستد ضدكو مركا قرآن كي حديثك الله شاقا قارب ضنبا وحي هدان وحاسي معقول ماها عقلك مقا it's not logic اما قار بايد هذا قياسك ويكا فكتهي اما قار بايد هذا ذوقي يدنك تصوفك او خلاف سنتي اما قار بايد هذا ونن بوليتيكال وحني سياسة موافق سنة لكن كل ذلك وكبر إلهي عدك حكمة بدن واللوغي إناني تشرين عدك علمي بدن إناني تشرين عدك نحرس بدن إناني تشرين وحسود دشي إني علمي حكمة نحرس بوضة معروف ولذلك نبي مركو كبر كالتلمامي وحكو تلمامي وبطر الحق وحق أديده وكبر كاسي ومركا اللي تشوغو حق الرب سبحانه وتعالى حق ابن آدم كمركا اللي تشوغو وإناد حقيرته هدي كبر كوكو بطوات حق الديدة إلهي بقرانك وحكو ليه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق آيات كي قوار ضعفنا ما فهم ينبأ كوى محي حق يسكوينين يبقى لله سبحانه وتعالى كوى كبر ككتشرة ما فهمان بإلهي آيات كيس كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار إلهي سبحانه وتعالى وحر بابايو أوده وأن حق بقل متكستو قلبك متكستو كبري أو إسويني إذن كبرك حق الرب ونقون كره إن أدولك عضو أنا ربكم لعلى كيلها يوحى اللمدة إن حق الرسول كولك عضو كويلها نؤمن لبشرين مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا ما بني آدم نلمدون باتين وحقير هذا الرسول حقيريا وكبر أي حق كسنتاجيا كبر كون نقون كره ضدك بد وحوجة علمية مركا يشان أفر كتاب مركا تسكت دودين استلاهات دت كوا جهال وأحبق قرر ما ينادون بوداده تادون باشيخ نمضاء والله من نقول إنسى كبركو بل أنت حقا كلاو كعده هل باتشولار يا ميد ماستر مركو قاطع أما الدكتور قاطع يصافو فيم وده دتكو بيناني دتك يا هين أركي بكري وايا كل ذلك هو كبر قفك بني آدم كاسيبا مسلم كا أقوني مركا أكرر تواضع با أكرر وحقرش لأنتي سيبو برتا أقونتو وحكا لما شيكتو وحي شيكتا ونعيبتا دا إمساد جاهلة هيد وهي مركا وحبرتي وحد قرنسا وحنا ودوات كاين دالعيد شاليتو
taa macnaheedu waxa weeyaan kuwa waxaan kala bartayna waxay baranayaan oo dhawaad ka indhalaaday aqoontu markaa waxay kordhisaa qofku inuu ogaado ceebtiisa ah wax magarashada jaahil inaad tahay bay sheegtaa walidaalika nowadays waxay qoraan mawsuucaad encyclopedia ku saabsan the ignorance encyclopediyaashii hore cilmigu ahaan jiray waxay dhahdaan ninka caalimka ama ninka maanta takhasus qaata subjectka uu ku takhasusay as'ilaadka dhex yaala inta jawaab loo hayo waxa ka badan inta aan jawaab loo haynin masalada uu isagu jawaabteeda soo helay waxa ka badan inta aanu ansar u hayna meesha taala ka tira badan idan aqoontu waxay sheegtaa inaad jaahiltay saad qofka bini aadamka rasmiga markuu aqoon rasmiya yeesho wuu tawaaducaa laakiin jaahilku markuu xoogaa loo sheego markaasuu is-afuufaayo isbuunbuuniya idan tawaaducu cilmigu waa inuu tawaaduc kordhiyaa maaha inuu kibir kordhiyo cibaadadu waa inay tawaaduc kordhisaa dadka badh ayaa waxoogaa cibaadaha markuu sameeyo wuxuu moodaa dadka kale dadaan waxba kala ogeyn isagu inuu ilaahay daacadiisa ku jiro habeenkii cibaadaysto xijaaban yahay kan sameeyo kuwa kalena lacalla qaarkaad yasaysaa inay ilaahay kaaga dhow yihiin waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa hortiisa ninbaa soo maray isagoo nin saxaabiya la fadhiyo markaasuu yidhi war kaa ka waran markaasuu yidhi waa mid hadduu gabadh kaa soo doonana waa nin la siiyo hadduu hadlana waa mid la dhagaysto yacni waa nin bulshada magac kuluu tilmaamaya markaasaa mid kale soo maray markaasuu yidhi ka waran markaasuu yidhi kaasi hadduu hadlana nin la dhagaysto maaha hadduu gabadh ku weydiistana mid gabadh la siiyo maaha markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kan aad ammaanayso muggii oo dhulka ah yacni kaas adduunkoo laga buuxiyo dhulkoo laga buuxiyo kaasoo wada ah waxa ka fadli badan hal xaboo kana buu nebigu leeyahy yacni maqaahiista bini aadamku haystaan ma aha ina akramakum cinda allaahi atqaakum atqaaguna maaha camalka badnidiisa waa camalka siday alla u aqbalo garan maysid waxaan badan aad samaysay in rabbi kaa aqbalay iyo inaan laga aqbalin cidda wixiisa la aqbalay ayaa mudan walidaalika ayuha alikhwa dadka badh baa waxoogaa cibaado ay sameeyaan isku afuufa oo cujbi uu ku dhaca dadka badh ayaa in maalo ay haystaan ama reer magac dadka kule dhexdooda ay ka dhasheen oo waxaa laga yaabaa reer taariikh leh ama magac leh inuu ka soo jeedo isku afuufo waxaasoo dhammi kibirkay keenaan dadka badh ayaa waxoogaa inuu jidhkiisu dadka ka yaro xoog buuran yahay ka muruqyo kuuskuusan yahay amase ka qorqoran yaho ka yaro qurux badan yahay inta kale u yasa war waa ilaahay sancadiisii waxaanaad kala wadaa kan foosha xunna ilaahay baa abuuray kan quruxda badanna ilaahay baa abuuray meel quray ka soo wada baxeen laba faktoriyo kala nooca maaha kan quruxdaad ku ammaanaysa iyo kan foolxumadaad ku ammaanaysa labadaba rabbigood baa abuuray walidaalik wax labada midna adigu maad samaysana waa gift waa siin waa cataa xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala ilaahay markuu nimcada ku siiya inaad tawaaducdaabay ahayd walidaalik baa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam oo dalbaday boqoradii balqiis lo odhan jiray carshigeeda in la keeno oo kuwii la fadhiyay mid cifriiti uu yidhi intaanad meesha ka kicin baan keenayaa oo mid kaloo aqoon-yahani isagu uu yidhi anigu waxaan keenayaa ilbiriqsi طرفة عين إيشو أنت يبرق سكوتنا وملي سكندز واحد سكننا كير بانا نقول كوكينيا دبتنا وكوكينا عرش با ما شيمي بلقيس نبي سليمان مؤرن تكنولوجي يقول انتو قارسيسية أركا دولة دايدو هالكي مريسا أركا سيدان صبا انتان عرشي وقصو فيو أنو كيني كروه بيت المقدس تكنولوجي ما انت يالا ما صبين كروه bini aadamku maanta intuu technology haystaa muu gaadhin weli inuu yaman milliseconds kaga qaado shay oo uu ku dhigo maxay oo uu bayt ilmaqdis falastiinkeena weli lama gaadhin nebi sulaymaan cahdigiisii sida tani way dhacday markay dhacdayna muu odhanin eega sida uu technology-ga u sarreeya aqoonta iyo waxaanu haysanaa wuxuu yidhi hada min fadli rabbi liyabluwanii ashkuru am akfur kaasi waa ilaahay nimcadii fadliga dheeraadkii ilaahay siiyey weeyaan waana imtixaan buu leeya waxa la eegayaa inaan shukri noqo iyo maxay iyo inaan kibro baa la eegayaa buu leeya
liyabluwanii ashkur am akfur, inaan kibro oo gaaloobo iyo inaan mahad celiyo. dadka badh baa qaaruun baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay fakharaja calaa qawmi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim. soo duuduuba ayuha alikhwa, nusuusta aynu tilmaamnoo dhan aynu ku fasirnay aayadda qaybteeda hore, cibaad araxmaan aayadda qaybteeda hore aynu weli taagannahay, waa cibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan. waxay tilmaamaysaa qofka cibaad uraxmaanka ee ilaahay loo nisbeeyey inuu addoomihiisa ka mid yahay, dhaqankiisa wuxuu yahay. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay taabiciinta ninka ugu fadli badan buu nabi maxamed ka waramay. yaa u fadli badan taabiciinta? waxauu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin la yidhaahdo uways alqarani. uways alqarani fadaaishiisa muxuu ku helay? waa nin caabido ilaahay caabuda, hooyuu lahaa, hooyadiina wuu samafali jiray. dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii, haddaa uways aragtaan waxaa ku tidhaahdaan ilaahay dembi dhaaf noo weydii. hadda waa saxaabadii. marka cumar bin alkhadaab cahdigiisii ayaa ciidamada muslimiinta ah bershiya lala dagaalamayay, furs eeraaniyiinta. ciidamada muslimiinta ka yimaada yaman ee madiine soo maray ciraaq kusii socdoo dagaalka gelaya ayuu weydiin jiray, war qabiilkaas maydinku jiraa? waxa ahay muraad qabiilka la yidhaahdo. haa. qaran cid ahi maydinku sii jirtaa? haa. wuu sii wadaa ilaa uu yidhahdo uwaysulqarani nin la yidhahdaa maydinku jira? haa bay yidhahdeen, uways waa nugu jiraa. uwayskaasi ma yahay buu weydiiyey. nin baras qabi jiray. barasku waa xanuun jidhka ku dhaco qofka biniaadamku wada caddaado, diirkan sare uu ka baxo, oo dabeetana caafimaaday ilaa iyo mawducu dirham mooyaane, in hal coyn la saaro mooyaane jidhka intiisa kale ay caafimaaday. markaasaa la yidhi haa, igu yeedha buu yidhi. waa loo keenay. uways alqarani buu su-aalihii weydiiyey, wuu sheegay. hooye ma lahayd oo keligeed haa, xanuunkaa ma qabi jirto, ilaahay makaa caafimaaday? haa. wuxuu ku yidhi nebi maxamed baa ii sheegay haddaanu ku aragno inaanu kaa ducaysanay, ii ducee. wuu u duceeyey. dabeetana cumar waa madaxdii muslimiinta marka kan wuxuu weydiiyey, aan kuu qoro waraaq kuufa kuugu qoro. kuufa waa magaalooyinkay sii mari doonaan caasimadaha muslimiinta, nin jooga oo waaliga ah, maamula govarnarka magaalada, aan waraaq kuugu qoro in lagu maamuuso, dee si fiican lagu soo dhoweeyo. wuxuu ugu jawaabay, akuunu fii khabraa'i innaasi axabu ilay. dadka xagga dambe socda inaan ka mid noqdaan cidaba i garan baan ka jecelay waxaanaad sheegayso. cumar wuxuu rabaa in la yaro maamuso, meel fiican la dejiyo, waa nin saalix oo wanaagsan la yidhaahdo. isaguna wuxuu leeyahay waa rajul mutawaadica, anigu waxaan rabaa dadka dhexdiisa inaan ka mid ahaado. qof la tiltilmaamo magaca loo sameeyo maamuus ma jecli buu leeyahy, shuhrada iyo waxaan ma rabo, khabraa'i innaas inaan ku jiraa baan doonayaa. uways alqarani waxaa lagu tilmaamaa waa dambaa nin yaman ka soo xajay, xadiiska saxiixa muslimku ku yaala. markaasuu weydiiyey cumar oo yidhi, war ninkaasi ma idinla joogaa? markaasuu yidhi haa. dee waxaan ka imi isagoo marya xunxun oo aan dadku u aaba yeelin, yacni misaakii inta magaalada nin ka mid ah isagoo ah. markaasuu wuxuu yidhi ninkaasi, nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaad aragtaan ka ducaysta. ninkiibaa dib u noqday. dabeetana uways buu u tago, wuxuu yidhi war ii ducee. wuxuu yidhi waradaa xaj ka yimo imka dembigaaga lasoo dhaafay saynu rajaynayna, ducee adigu. may adigu ii ducee. markuu ku celceliyo markii dambe ku yidhi war ma cumar baad aragtay? markaasuu yidhi haa, cumar baan arkay. dabeetana wuu u duceeyey. dhar cusub buu siiyey, markaa laba isku joog, bedelad cusub. uwayska caynkanee bedladii cusbayd markuu xidhay magaaladii weys, war weyso xaragoonayaa la arkaa la taagay, yacni bedlad baa loo quudhi la'yay, halla isku joog inuu noqdo. waana kuu nebi maxamed ku tilmaamayo inuu yahay maxay? afdalu taabiciin. taabiciinta inuu u fadli badan yuu nebi maxamed sheegaya. dadkii uu la noolaana iyagu badla, hal isku joog la xidho yara cusub bay wax weyn ula muuqdo, ay leeyihin uways xaguu ka keenay bedladan cusub maanta.
وكوا رب نبي قولي لو أقسم على الله لا بره. أخوتي في العقيدة، آيات هدين قيبتي كلا كضره. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربي وحلي سبحانه وتعالى صفات الله بعد يكون إليه وحيتهي إذا خاطبهم الجاهلون وحمقرتضو هدي لها ضشنا. الجاهلون بلغة المامي. الجهل في اللغة وضد العلم. جهلغو واقونتو كسهر جيدا وحكى له جهلغا في عربي لغو تلمامه السفه والطيش من قابني ذي فضيتك يعني عقل في عنان لا أنت جاهل كان وحلو له قفكو هدو عقل يا قوم في عن يدو استعماله لكن هدو استعماله كروايه فهو جاهل. إلهي مركا وحلي وإذا خاطبهم الجاهلون وحما قرطدو هدي لهدشو قالوا سلاما waxay ugu jawaabaan radigoodu wax ma garatadu maxay kula hadlayaan yani afxuma haday kula hadlaan way qiimeen waayaan ama ay caayaan maagaan waxun ku sameeyaan qaalu salaama waxay ku yiraahdaan bar rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala salaama. qofka muuminka aayadu dhaqankiisa labaad ay ka warantay waxa weeyaan inuu hadalka kiisa xun iyo warka liita uu ka koreeyo. markii hore waxa la yiraahdaa waa mutawaadi markana koreyn baa la tilmaamaya. muxuu ka koreeyaa? wuxuu ka koreeyaa afkiisa in xumuhu soo maraan. dhaqan waxaanu ahayn cayda iyo afxumada walow xataa hal caayo inuu cay celiyaan dhaqan u ahayn. laba midna uguma aha uu ka xishoonaya in afkiisa waxaasi maraan. laba muslimkan kale walaalkiiya wuu naxaya. saddex shaydaan buu ku riixaya oo waayo shaytaanka celisay haddaad qofka u jawaabto shaytaanku ka kalena uu soo gugujinaya marka waa murankiina waa sii badanaya. haddaad si ka jawaabi weyda cayda hore ama aad si fiican ula hadasho macrakadii shaytaanku way khasaaraysaa. walidaalika baa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waqul licibaadii adoomahayga waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahay cibaad الرحمن nabi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay waqul licibaadii adoomahayga waxaad ku tidhaahdaa yaqulu lati hiya ahsan ha ku hadlaan ta wanaagsan. وقولوا للناس حسنا با إلهي قرآن كنت المامية وارمرك هاد ليسان وحو ناكسان كهدلا يقول التي هي أحسن وأيه إن الشيطان ينزغ بينهم با إلهي الشيطان كاسكد رأيه قف كان متواضع عباد الرحمن كي وحو أقيه هاي ماشي عاية وحاني مركا اتمادين شيطان فرصدي أي تاي. ولذلك أيا وحا ربي وط المامية إنانو الباب كاسفورين نبي محمد سقر رب الله لنا إلهي وحلي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحد قادة عفو قبائله إليه سبحانه وتعالى إن ادتك عفيده عند المقدرة هذه كسقر وأمر بالعرف سمنا أنضت كفر هذه وح منكرية أفكاك كصابحين وأعرض عن الجاهلين بإلهي كو جهل جنيس كجتشيسو. ومحد ما لينسى هدي فرعون ما عيد كبر بدن باجرته فرعون هدي إلهي كيري فقولا له قولا لينا ورد بعسان كلها دي فرعون وحكا هوسيا محل غورنا يا مركا تهينا وين ورد بعسان لغنها تصالي وحين وغفلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام فردية وحاسكي سيلة جوغة أيا يهود قاره ويمادين دبتنا وحيدا دنا السلام عليكم السلام ما هو السام جيري كركاغا ها طبي كو يدادين جيري كركاغا ها عائشة ماشا فردده أيا عروطي نبينا عليكم بوسكيري وحي مودع عائشة نبينا وارنتا فاهمين عائشة مركا عروطنا وحي تري وعليكم السام واللعنة حديثك بخاري كو يالا إذنك كركي نهاتو إلهي عرديسة iyo geeriduba idinka korkiina haatay Aisha leeday. Nabi Muhammad baa wuxuu ku leeyahay mahlan ya Aisha. Aisha u kaadi sug. Aisha waxay leedahay markaa
oo miyaad maqleen ilaahay rasuulkiisa waxay ku hadlayaan waxay moodaysaa inaanu nebigu fahmin ama maqlin waxanay sheegayaan caaisha markaa iyadaa wax radiday markay radidayna nebigu wuxuu ku yidhi mahlan yaa caaisha sug caaishaay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa rafiiq yuxibu arifq ama waa mid dabacsanaanta jecel in wax la dhimriyo qofka mu'minkiina maaha caashaay buu nebigu ku yidhi mid afxun maaha afxumaanta iyo gacanka hadalku dhaqanka muslimka maaha qofka muslimkii laba wax buu yaqaanaa jihaad iyo macraka wuu yaqaanaa goob goor la taagan yahay markaas qaab buu u dhaqmaa nolosha caadigaana wuu yaqaanaa markuu joogo markaana qaab kalaa loo dhaqmaa layskuma daro walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay caaishaay qofka mu'minka afxumadaasi kuma jiro ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa idfac bilatii hiya axsanu sayi'a idfac bilatii hiya axsan asayi'a xumaha tu wanaagsan kala horgee baa ilaahay yidhi naxnu aclamu bima yasifuun waxay ku hadlayaan annagaa garanayna baa ilaahay yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim dhaqanka qofka mu'minkii markaa waidaa samicuu lagwa acraduu canhu waqaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin haddii ay dadka mu'miniintii afxumada maqlaan iyo wixii ku saabsiisan waa ka jeestaan baa ilaahay yidhi ma yooyootamaan ma caytamaan waxay ku yidhaahdaan lana acmaaluna walakum acmaalukum war annagu camalkayagaanu lena idinkuna kiina salaamun calaykum nabadi korkiina ha noqoto laa nabtaqi lijaahiliin taa macnaheedu waxa weeyaan qofka mu'minka ahi ma kibro waa mutawaadic haddii lagu xadgudbana kama jawaabo wuu ka dulqaataa dulqaadku waa raganimo liidashanimo maaha yacnii dhaqamada qaar baa markuu kaljarku wax ku celceliyo fasal qaldan siiya dhaqanka soomaaliga ka mid ah dhaqanka soomaaliga dulqaadka badan nacasnimo u yaqaanaa waana dhaqan liito u baahan in la masaxo dhaqanka soomaaligii nahablaayi waxay kugu tiri naa waa nacas aan dadka iska celinayn baa laleeyahay ama waa doqon aan jawaabaynin nin raga maaha ma ninka goobtaa waxaa lagaga yidhi aamusay idan waa kaljar koray oo qaldamay waxaan ku soo koobayaa aayaadkii cibaaduraxmaan ka warramaa la yidhi laakiin waxaan isku dayay inaan soo koobo aayadda koowaad baa inugu fillaatay aaya waaxida wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama ilahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna wada